دورو كوان كالورو مسؤول غالبانا مسؤول غالبانا. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta kormeeray saldhigga booliiska degmada Dhuusamareeb xarumaha ciidamada kumaandooska danab ay ka degan yihiin magaalada iyo ciidamada nabad sugidda ee sirdoonka qaranka ee qaybta ka qaadanaya adkeynta amniga magaalada Dhuusamareeb inta ay socdaan howlaha lagu dhisayo galmudug loo dhan yahay oo dhameystiran maadaama aan laba meel wada laga tirsanaan karin waxa u dhaarateen qarankiina waa inaad ka shaqaysaan magaaladan nabad inay ahaato Soomaaliya oo dhan ay isu timid maalin walba diyaarada timaado adduunyada dhan ay isu imaanayso Dhuusamareebta aad taqaaneen ma aha galgaduudda aad taqaaneen ma aha galmudugta aad taqaaneen ma aha waa galmudug adduunyada indhaha ay ku hayso adduunyada u furan rajo badan ay ka muuqato dawladnimo laga rabo walaalihiin iyo xaasiskiina iyo caruurtiina ay ku manfaacsan doonaan idinka degan meesha idinka la rabaa inaad quruxsataan magaaladiina ma qurxanaanayso haddaan amnigeeda la isku haleyn karin hadda waa ka sii daran tahay marka waxay cadowgu isku dayayaan inay horumarka ka hortagaan idinkana waxaad tihiin kuwa la rabo horumarka inay keenaan wasiirka amniga saraakiisha ciidamada ayaa ra-iisul wasaaraha ku weeliyay kormeerka oo isugu jira dhiirigelid iyo kurgalida hanaanka ciidamadu ay uga shaqeynayaan adkeynta amniga magaalada iyo sidoo kale diyaar garowga ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga xoreynayaan deegaanada galmudug argagixisada al-shabaab ee shacabkeena ku dhibaateynaya goobahaasi qabiil lahayn oo hadafkoodu yahay qarannimo waddanimo iyo Soomaalinimo oo waliba diyaar u ah inay dalkooda xoreeyaan inay halkan ka muuqdaan aragtidiina ayaa iftiin ka muuqda iyo qarannimo iyo dawladnimo waxay la dhihi jiray ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ugu yaqaanay oo libaaxyada Afrika la dhihi jiray ayaa tusaale sax ah oo halkan ka muuqda markii la idin arko waxaa qalbiga kaa gelaysa inaad ku dhiirato inaad boqolkiiba guulaysanaysid marka waa idin mahad celinayaa waa idin hambalyaynayaa waa idin soo salaamay sidaa magaaladan u timaadeen hamiga dadka uu isbedelay niyaddoodu koray u kacday ciidan akhlaaq leh asluub leh tababaran ciidan ah inay yimaadeen magaalada waa laga sheegay waa laga dareemay waa mahadsantihiin ilaahay idin waa idin soo duceynaynaa dadka iyo dalkiinana abaal xooggan ay idin haayaan marka waxaan idin leenahay dadaalka halkaas ka sii wada insha Allah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay ciidamada ku sugan xarumaha uu kormeeray ayaa sheegay in madaxda dawladda ay aad ugu faraxsan yihiin shaqada wanaagsan ee ciidamada qaranku ay hayaan ayna ku faanayaan ciidamada naftooda u huraya ilaalinta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed waxauna kula dardaarmay in si wada jir ah ay u libajibaaraan shaqada qaranka u hayaan fursadaas inaad isaga ciyaartaan iyo inaad dadkiina uga faa'iideysaan labadaba idinka ayay idinka furan fursadaas marka uguma faa'iideyn kartaan shacabka Soomaaliyeed haddii maskaxdiinu qayb ay qabiil ka fikirayso ama qolo ka fikirayso ama koox ka fikirayso haddaadan xor ahayn ilaahay waxa uu dadka siiyey waxa ugu muhiimsan caqligooda iyo maskaxdooda maskaxda adaa lagu siiyey marka in adigu ku fikirto in lagula qaybsado laguma siin in cid kula lahaato waxaa lagu siiyey adigu inaad fikir aad xor u tahay aad ugu adeegto shacabka Soomaaliyeed fikir kala qoqobnaana waa shaqeyn waaye mid qabaaliyaaladna waa shaqeyn waaye mid musuqmaasuqna waa shaqeyn waaye mid aragti koobanna ama gaaban waa shaqeyn waaye dawladda Soomaaliya ayaa isku dhinac wada dadaalada lagu dhisayo galmudug loo siman yahay iyo qorshaha xoreynta shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan deegaanada argagixisada uga sugan yihiin dawlad goboleedka galmudug si marka ay dhismaan hay'adaha dawlad goboleedka galmudug ay dhammaan shacabka reer galmudug u helaan adeegyada aasaasiga ee ay xaq u leeyihiin
Somalia 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 Gorgor Nasra Bashiir Cali warbaahinta qaranka Dhuuso Mareeb.